ilmada ugu xanuunka badani maaha ta ka timaada indhahaaga ee daboosha wejigaaga, balse ta ugu xanuunka badani waa ta ka timaada qalbigaaga ee daboosha ruuxdaada. haddii ay jirto gabadhaad jeceshahay oo aad doonayso inaad guursato waad nolosha la wadaagto, waa inaad fiirisaa gabadhaasu inay tahay gabadh wanaagsan iyo gabadh xun, qabiilkay doontaha ka soo jeedo. waa inaad fiirisaa ehelkeedu inuu yahay ehel wanaagsan waad la macaamili karto iyo ehel xun waad la macaamili karin, sababtoo ah waa carruurtaad dhali doonta mustaqbalka hooyadood. xumaanteeda iyo samaanteedu way ku saamayn doontaa mustaqbalka. waxaa dhici doonta waqti aad dhihi doonto talow maxay igu watay, balse iminka waa inaad ka fiirsataa oo aad eegtaa inay tahay gabadh wanaagsan iyo gabadh xun. jacaylku waa wax qurux badan oo aan la wada haysan oo aan la wada heli karin. waxaad maqlaysaa qisooyin jacayl oo kala xanuun badan. qisooyinka qiso ka mid ah ayaad isweydiinaysaa sidee ayay u dhacday, balse waa isfahan la'aanta jacaylka. jacaylka waxaa fahmi karaa qofka dareemaya oo keliya, balse dadka oo dhan ma fahmi karaan. jacaylku wuxuu wataa dareen gooni ah oo aanay dadku fahmayn. waa maxamed wardi cali oo idin leh guulaysta. hamoodin noloshu inay dheer tahay. hamoodin nolosha inaad weligaa ku noolaanaysid. maalin maalmaha ka mid ah ayaad adduunka ka tegi doontaa, waxaana kaa horeeya camalkaagii. hanti walba oo aad lahayd iyo magac walba oo aad lahayd waxba kuu tari maayo. intaad nooshahay waa inaad ilaahay caabudaa, sababtoo ah waxaad noqonaysaa kuwa guulaysta. haddii aad xumaan aad ka shaqayso oo aad ilaahay cibaadadiisa iskaga tagto waxaad noqonaysaa kuwa guuldaraystay. weligaa intaad nooshahay ha isdhiibin oo ha niyad jabin. guushaada waad gaadhaysaa, marnaba ha isdhigan. haddii aad kufto istaag oo hore u soco. waxaa kaa hor imanaya dad badan oo ku niyad jabinaya, balse ha u joojin. guusha laguma gaadho si fudud ee waxa lagu gaadhaa si dhib badan. waxaana guusha gaadha qofka samir iyo dulqaad yeesha ee ilaahay tala saarta. weligaa ha niyad jabin, guushaada waad gaadhaysaa. waa maxamed wardi cali oo idin leh guulaysta.